kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV ku soo dhawaada wararka Faafi TV qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah dadka naafada ee ku nool xeryaha barakacyaasha oo ka cabanaya hay'adaha gargaar ka bixiya qorshe looga hortagaya askaraynta carruurta oo ka bilowday gobolka Jubbada Hoose qaramada midoobay oo baaq ka soo saartay wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland akhbaraadka caalamka aad ku daawan doontaan warka Faafi TV-na waxa kamid ah koox hubeysan oo dad ku dishay bariga dalka Congo ay markii kuugu horeysay haylaawina subscribe tira channelkan kadibna furatid calaamada gambaleelka dadka naafada ee ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa ka cabanaya hay'adaha gargaarka bixiya dadka naafada ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala degmooyinka Daynile Kaxda iyo sidoo kale deegaanka Tireedisa ayaa sheegay inaysan jirin wax hay'adaha oo gargaar wax ku ool ah xilligan soo gaarsiisa iyagoona sheeganaya dhibaatooyin kala duwan oo dadkaas xilligan haysta dadka naafada ee ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa sheegay in hay'adaha gargaarka ay caawinaad la gaareen kaamam ku hareereysan oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah kuwaas oo aan naafo ahayn balse iyaga xilligan aysan haysan cid gargaar wax ku ool ah soo gaarsiiso maadaama ay yihiin dad naafa una baahan in xilligan la garab qabto arrintan ayaa dadka barakacyaasha gaar ahaan kuwa naafada waxay ku tilmaameen takoor dhanka gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiin lahaa dadkaas inay tahay eedan ka dhanka hay'adaha gargaarka bixiya ee ka howlgala dalkeena Soomaaliya ayaa timid kadib markii maalmo ka hor adduunka laga xusay gargaarka bini'aadanimada adduunka oo ku beegneed 19 Agoosto 2020 balse dadka naafada ay ku nool kaamamka ku yaala Muqdisho iyo duleedyadeeda ayaa xilligan aanan haysan gargaarkii ay u baahnaayeen waxaana xilligan eedu ugu badan qaadanaya hay'adaha gargaarka oo dad aan naafo ahayn gargaarkii gaarsiiyay halka iska iloobeen dadkii u baahnaa gargaarkaas oo baahidooda 100% ay ahayd inay gaarsiiyaan dadka naafada ee ku nool Muqdisho xilligan waxay dareemayaan takoor dhanka gargaarka ah maadaama dad naafo aan ahayn la gaarsiiyay iyagana halkii ay joogeen lagu iloobay waxayna ka codsanayaan hay'adaha gargaarka bixiya iyo cid kasta oo xaaladooda soo eegi karta inay gargaar la soo gaarto iyadoo marxalad adag dadkaas ay xilligan la kulmayaan wabdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda ayaa socdaal ku gaaray xarumaha ciidanka xoogga dalka ee degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ujeedada wafdigan Dobley ayaa waxa uu yahay sidii ay wacyigelin balaaran uga sameyn lahaayeen ujeedada wafdiga Dobley gaaray ayaa waxa uu yahay sidii ay wacyigelin balaaran ugu sameyn lahaayeen ka hortagga askaraynta carruurta inta ay ku sugan yihiin degmada Dobley wafdigan ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmadaas iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona kala hadli doona arrimaha ka hortagga askaraynta carruurta hore ayay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya tababaro la xiriira ka hortagga askaraynta carruurta uga soo fuliyeen degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxaana socda dadaalo lagu doonayo in lagu wacyigeliyo ciidanka iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ku sugan degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose qaramada midoobay ayaa baaq cusub ka soo saartay wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswam ayaa warbixin u jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulan gaar ah oo ay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya warbixintan ayaa ku saabsaneed xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan Soomaaliya iyo khilaafka la xiriira habka loo qabanayo doorashada soo socoto ayaa ergeyga xogayaha guud waxa uu soo hadal qaaday wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ee bishii Juun ee sanadkan ka qabsoomay dalka Djibouti wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ku dhexmaray dalka isagoo ku baaqay in la sii wado wada hadalada u dhaxeeya labada dhinac ee Somaliland iyo Soomaaliya waxaanu soo dhaweynaynaa kulankii hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Somaliland ku dhexmaray caasimadda waddanka Djibouti taariikhdu markay 14 Juun kaas oo fududeeyay midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka ay yiri James Iswam ugu dambeyntii wakiilka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la sii wado wada hadalada loona ballamay ee guddiga farsamo kuwaas oo daba socday wada hadaladii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Somaliland daawadayaal wali waxaad la socotaan warka Faafi TV markaana akhbaraadka dibadda koox hubeysan ayaa bariga dalka Congo ku dishay dad shacab ah oo gaaraya 13 ruux koox hubeysan ayaa 10 ruux ku dishay Koongada Dimuqraadiga koox hubeysan ayaa weerar ku qaaday bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxayna halkaasi ku dileen dad ka badan 10 oo shacab ah mas'uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale kuwa ciidanka ayaa sheegay in la laayay ilaa iyo 13 ruux oo shacab aan waxba galabsan kooxdan ayaa fadhigoodu waxa uu yahay bariga dalka Uganda sanadadii la soo dhaafay ayayna ka soo gudbeen iyagoona gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ka geysanayay weeraro ay dad badan ku dhinteen kooxdan oo lagu magacaabo ADF ayaa sanadkii la soo dhaafay 2019 waxay dhowr weerar ka geysteen gudaha waddanka Congo waxaana militariga waddankaas ay sheegeen in dhammaan weeraradaas dhacay lagu dilay dad rayd ah kuwaas oo ahaa shacab waxba aanan galabsan weerarada ugu badan ee kooxdan ay soo qaaday ayaa waxa ay ka dhaceen bariga waddanka Congo waxaana kooxdan ay ka howlgalaan inta ugu badan ay ka soo gudbeen xadka ay wadaagaan Congo iyo sidoo kale dalka Uganda waxaana militariga waddankaas ay dhowr mar ay sheegeen in kooxdan mar la weeraray ay u baxsadeen gudaha waddanka Uganda maadaama bariga uu xal la leeyahay dalka Uganda
waxaana dowladda Uganda laga codsaday in kooxdan ay gacan ka geysato sidii loo soo qaban lahaa inkastoo ciidanka Uganda ay diideen in Kongo ciidamadooda militariga ay gudaha u soo galaan bariga wadankaas maadaama ay jireen dhibaatooyin kooxdan ay hore uga geysteen qaybo ka mid ah dalka Uganda sida ay dowladda Uganda ay sheegtay Ugandana ay dagaal kula jirto inkastoo fallaagada wadanka Kongo ay gebi ahaanba fariisimaha ugu waaweyn ay ku leeyihiin wadanka Uganda daawadayaal intaas waxaa ku dhan wararka Faafi TV waad ku maasantiin la socodka iyo daawashada wararkeena